maalintan shidadeeda haddaan alla ku badbaadin maalin fudud maaha waayo dee afkaynu ka leenahay waa maaline 50,000 sannadood bay u dhigantaa afku maynu ka leenahay waa maalin qiyaame laakiin maalintaasi xisaabta ay joogto ilaahay quraanka wuxuu leeyahay ta'ruju al-malaa'ikatu war-ruuhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sana aayat saasal u tilmaamaya aayat kalena ilaahay wuxuu ku tilmaamaya maxay 50,000 sana mufassiriinta badhba waxay dhahdaa maalintani waa 50,000 sannadood haddana 50,000 sannadood maalmaheedu maalintiiba waa 1,000 sannadood mufassiriinta badhba saa yidhaahdaa ayan kaanat maalintani waa maalin ka dheer maalmaha caadiga ah maalin kumaankum sannadooda weeyaan innahum yarawnahu baciidan wa naraahu qariiba baa ilaahay leeyahay iyagu waxay u arkayaan inay dhowdahay iyagu waxay u arkayaan maxay inay fog tahay annaguna waxaan u aragnaa baa ilaahay leeyahay maalintan inay dhowday qiyaamo waa maalin dhow baa ilaahay leeyahay laakiin bini aadamku dee marka aakhira looga sheekeeyo wuxuu isirahaa waqtaad haysataa iyo dee qiyaamuhu baryahan ma jiro waradiga qiyaamahagu wuxuu dhacayaa maalintay naftu kaa baxdo dadka kale qiyaamahooda waxba kaama gelin adiga su'aasha iyo cadaabta iyo jannada iyo wax waliba waxay kuu bilaabmayaan maalinta naftu kaa baxdo adigu sugi maysid dadka kale inta la soo halaagayo haddaba qiyaamaha iyo dhibta jirta qiyaamaha maalinta qiyaame iyo burburka dunidan ku dhacaya iyo sida ilaahay dadka u soo bixin doono iyo xashriga iyo miisaanka iyo xisaabta iyo siraadka iyo jannada iyo naarta mawaaqif tiro badan weeyaan qiyaamaha iyo dhibta jirta ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa in badan buu kaga warramay qof kasta oo muslim oo fahmi kara qur-aanku wuxuu sheegayaana wuxuu helayaa warkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa maalintaa ka warramaya oo xaqiiqo ka sheegaya kow ilaaha weyn baa wuxuu ku sifeeyey inay maalin weyntay maalintani alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuhuun liyowmin cadiim yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin waa maalin weyn baa ilaahay ku tilmaamaya yani dadku yaqiinsanayn ama malaynaynin annahum mabcuuhuun in la soo bixin doono liyowmin cadiim maalin weyn in la soo bixin doono maalintaa waxaa kaloo ilaahay ku sifeeyey subxaanahu wa tacaala maalin culus haqiila inay tahay ina haaulaa'i yuxibuuna alcaajila wayadaruuna waraa'ahum yowman haqiila ilaahay wuxuu leeyahy kuwan gaaleed ama waxay jecel yihiin tan degdegta badan leh adduunka waxaanay ka tegayaan baa ilaahay leeyay yowman haqiila maalin culus waxaa kaloo ilaahay maalintaa uu ku tilmaamay maalin adag inay tahay casiir fadalika yowmaidin yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir waa maalin adag baa ilaahay yidhi oo gaalada marnaba aanu fududayn idan maalintan rabu samaawaati waalardi oo sifaynaya wuxuu leeyay waa maalin weyn waa maalin culus waa maalin adag ayaa ilaahay ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala waxaa ilaahay sifaynayaa maalintan baqaha iyo cabsida bini aadamka haysta inuu wareeri doono wax badanba mararka qaarkood aanu kala garan doonin waxaa rabbi ku tilmaamayaa ta uur kale in ilmuu ka soo dhici doono waxaa rabbi ku tilmaamaya ta nuujinaysa inay ilmaha hilmaami doonto o ilaabi doonto ilaahay wuxuu leeya yaa ayuha annaas ittaquu rabbakum ina zalzalata saacati shayun cadiim wardadow waa rabbigiin ka dhowrsada baa ilaahay leeyahy waayo ina zalzalata saacati shayun cadiim qiyaama gelgelinkiisu waa wax weyn baa ilaahay yidhi yowma tarawnaha tadhalu kullu murdicatin cama ardacat watadacu kullu daati xamlin xamlaha watara annaasa sukaara wamaa hum bisukaara walakina cadaab allahi shadiid waa maalin aad arkaysa baa ilaahay leeyahy
tii nuujinaysay waxay nuujinaysay ay hilmaami doonto, tii uurka lahayd uurku ay tuuri doonto, dadku aad mooddo inay sakhraansan yihiin baa ilaahay leeyahy. ilaahay baa wuxuu leeyahy watara annaasa sukaara, waxaad arkaysaa dadka oo sukaara ah, sakhraansan. wamaa hum bisukaaraa ilaahay buu leeyahy, mana aha waxay cabbeen dadku sakhraamay. dad wax cabbay oo saa ku sakhraansan ma aha, haddana waa la sakhraansan yihi. oo maxaa sakhraamayey? shiddat lhawl, dhibta weynideeda. walaakina cadaab allahi shadiid baa ilahay yidhi, ilaahay cadaabkiisa ayaa adag. saa daraaddeed baqe cabsi bini aadamku uu cabsanayo iyo baqaha maalintaa jooga waa kaa uu dadku sakhraamayaan. waa ka uu nebi maxamed tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ambiyadu oo dadka hormoodkooda ahaa inay ku koobmi doonaan nafsi nafsi nafsi, tayda tayda bes inay ku koobmi doonaan, ilaa iyo marka u dambaysa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam la soo gaadho ana laha uu yidhaahdo. waa maalin ayuu nebigu ku tilmaamayaa baqa daraaddeed kuwa dulmiga dunida ku sameeya indhahoodu aanay libiqsanin, ishuu iskuma qabsoonto, naxdin daraaddeed isha wuu kala hayaa. walaa taxsabanna allaha gaafilan cama yacmalu aldaalimuun inamaa yu'akhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi alabsaar. ha u malayn baa ilaahay leeyahay inuu rabbi moogan yahay waxa ay daalimiintu samaynayaan. ilaahay wuxuu leeyahy ma moogani, ee waxaan dib ugu dhigay maalin indhuhu ay engegaan oo aanay libiqsanin baa ilaahay leeyahy, ayaan abaalmarkooda dib ugu dhigay. muhطiciina muqnicii ru'uusihim laa yartaddu ilayhim طarfuhum waafidatuhum hawaa. walxaal ay yihiin baa ilaahay leeyahy kuwo muhطiciina musriciin, kuwo degdegaya marka loo yeedho, madaxa kor u taagaya, ishoodu aanay dib u soo noqonaynin baa rabbi leeyahy, caqlina aanu kuba jirin. waafidatuhum hawaa baa ilaahay leeyahy, caqligu waa madhan yihi, qalbigii wax lagu garan jiray waa madhan yahay baa rabbi ku tilmaamaya. maalintan dhibta jirta ilaahay wuxuu leeyahy kuwa daalimiinta ah, bini aadamku markuu naxo waxaynu naqaanaa in wadnuu xoog u shaqeeyo gariiro, dhugdhugtiisa aad ka maqasho. maalintaa halkan laabta ka dhugdhuglayn maayee dhugdhugtiisa xanjarada hunguriga halkan baa laga maqli doonaa buu nebigu ayuu qur-aanku tilmaamaya. waandirhum yowma alaazifa id alquluubu lada alxanaaj. uga dig maalinta dhow baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala, id alquluubu lada alxanaajir, markay qalbiyadu wadnuhu halkan ka dhugdhugleeyay, kaadimiin iyagoo haddana saakitiina laa yatakalamuun, qofna aanu hadlaynin, aamusan. ilaahay wuxuu ku sifaynayaa maalintan maalin indhaha iyo qalbigu midna aanu sugmaynin. yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar, quluubun yowmaidin waajifa absaaruhaa khaashica. rabbi wuxuu leeyahay maalintan qalbiyadu waa waajif, waa khaa'ifiin, waa kuwa cabsanaya, waa kuwa hanfariirsan oo baqaya, waa kuwa argagaxsan. indhahooduna waa khaashica, waa kuwa dullaysan ayaa ilaahay ku tilmaamaya. indhahooda sifooyinka alla ka bixiyey, mar waxaa la tilmaamay inay engegan yihiin oo aanay libiqsanaynin, mar waxaa la tilmaamay inay kor eegayaan, mar waxaa la tilmaamay oo aan ishoodu waa ku soo noqonaynin, darafku soo noqonayn, mar waxaa la tilmaamay inay kuwa dullaysan yihiin. waxaa kaloo ilaahay ku tilmaamaya waa maalin carruurta ay cirowda baa ilaahay yidhi, fakayfa tattaquun, war saydin uga cabsan doontaan baa ilaahay leeyahay ilaahay cadaabkiisa. in kafartum yowman yajcalu lwildaana shiiba. fakayfa tattaquuna yowman, yacnii maalin saydin uga cabsanaysaan, haddaa gaalowdaan maalintaa saa uga cabsan doontaan. waa maalin ka yeesha carruurta shiiban ay ashyab, kuwa ciroobay. alsamaa'u munfatirun bih kaana wacduhu mafcuula. waxaa nusuusta qaar ku soo aroortay aadam inta la yidhaahdo ibcath bactha ahli nnaar, kuwa naarta gelaya aadanow soo saar. dabeetana waxaa la odhanayaa waxaad soo saartaa
كونكي قفبة سقال بقولي السقالية سقاشن صبحي مركز صار لي هذا بي عرورت عروبي سابا حديث قلت المامية وقت قاسي أيا وقت عروري أي عروبي شو ومال أنو تشري دونين حديدك قرابة نمو إيا طول نمو إيا ولال نمو إيا آبا نمو إيا هويو إيا حديد يحقال تونه ومال أنو تشري دونين إلهي وحلي فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون هذه سورك الله أفوفه مركز سورك الله أفوفه بإلهي لي فلا أنساب بينهم نصب كدحيا مجره ويل إيا ولالتون مجران إيا واحد وهشتاتون ولا يتساءلون بإلهي وحبل سويدين مايو بل قفك نفتي سمويا نعد كلا الدنين مايو ومالنو قفكو كعرر دون ددك انتي خيغالكي خيغتا وهيدا ugu dhaweey walaal hooyo aabo saaxiib kula dhalay فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قيامه هدو دعبا إلهي ليه ومالنو كعرر دونو قفكو ولالكي يهويدي يا أبيه يتوقبي يا عرورتي سو كعرر دونو ومالنا نو عد نبا سكايا ورقو عرر دونو وايو لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قف والبما انت تيسا مشغول السيبو إلهي لي سبحانه وتعالى بلد إساقا هيستا كفلا عد وحقبا كافي كري إساقا مشغولة آية كري إلهي وحلي يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق آية كري إلهي وحلي واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولهم ينصرون إلهي وحلي ورددو ورمالك الدور صدا كعب صدا مال أنكو وحدالي وحدالي وحبو قبان كرين كل دالينا عدي دشياني وحبا طري كرين وهو يا إلهي يبوهي سوى النبا إلهي لأنه مالن تاني إيمان يسو وحدابي وديار قرو واركا الدور صدا مالنا نفينا نف وحوها با رب التلمام سبحانه وتعالى أيها الأحبة مالين تندبت التاغن وحا إلهي كسفين يا قالضو هدي دولك أي لهان لهايين والله يدهدو اسكو فرطة واسكو فران لهايين دبت هايساتا ما انت أدونك حولا ولا شعليه لكن ما انت عذاب كعر ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به با إلهي نفت كستاء الظلم السميسي هذا إلهي هيدولك وحيا لبا لافتدت به واسكفر الله يدبا إلهي ولا إلهي وحليه قالكو هدو دولك يلبا لابكي بليه اسنوا اسكد إلهي واسكفرته والذين لم يستجيبوا له لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه دولك إياه إن كلون لك هدي الله سيو لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب بل إلهي وحكوت المامية دولك مقيو ذهب ما هدولك وقول يسقوا ذهب إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به حتى هدوها يستبى إلهي ليه دولك مقيو ذهب oo yiraahdo inta hal iga qaado aniga maanta hal iga daayo cidi ka deynmaysa baa Ilaahay yiri ulaa'ika lahum 'adaabun aliim wa ma lahum min naasiriin warkuwaasi 'adaab kulul bayleeyan 'adaab wax laxwiya wax guba cidu heelisiye cidu gargaartana yeelan maayaan sida ogeed buu nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam xadiiska Bukhari ku yaala yujaa'u bil kaafir yawm al qiyaamah
فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به ما أنت قيامات قال خلك يا نبا إلهي لي سيد النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام ما أنت قيامات قال خلك يا مركز وحلوي هذا ورهدا دولك مجيء الذهب هيسن لهي ما أنت ما يسكفرن لهي فيقول نعم هابو إلى هذا ويسكفرن لها فيقال له وحلوه جوابه قد كنت سألتك ما هو أيسر من ذلك هران كو ويدي وحنتا كفضد مركا دونيدا جوجتي دول مغيو دهبا يسيكو ما نورن با الهي لي مركا دونيدا جوجتي بس عابد بان كو يدي كاسو كفضد ان دول مغيو دهبا كينتو تي فضوديد با لغا واي waxba cid maanta ka dhageysan meesha la leeyahay wax ka fudud baad bixin weyday xaalka gaaleed إلهي سبحانه وتعالى وحكوت المامية ضدك انتو اتشعلا حتى هدي الله إلى هلا عذابه وهذه هلو بسيدا يرو أقبليه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى وجعلي دنبيله با إلهي سبحانه وتعالى ما أنت عذاب كذا ينس كفر طوج على الله حاسكيسي إيا ولالكي إيا تلكي إيا قبيلكي إيا وحو شيغر يوردن إيا دولك أوردن هدو سكفرا كريا وسكفرا الله سيساقو بدبادو لكن تاسي ما جرتبا إلهي سبحانه وتعالى قضبك الشنادة إنه تلماما إنه ee sheegaya maalintan dhibteedu intay leeg tahay waxa kamid ah maalinta dherarkeeda hatta aad cadaabka ka badbaado maalintan shidadeeda hadaan la ku badbaadin maalin fudud baaha waayo de afkaynu ka leenahay waa maaline konton kuna sanadood bay u dhigantaa